أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله دمانتين بأمة الصومالية يعني كل شيء سيدو كالتو وعن أدو سلامة يطولك سوكيها أن إهلالها محي إيان إسلام الله إسلام مركز وبيش همروسة أيام حلقا كلاهوية وكليب كيلاباد إسكالدغيستا نجاسة بلعاد كرديستا doorshaamada iyo xaarka ay dilandilaysanaya dhaqan xumayaasha doqmaha duufka leh ee soo doontay inay jaraaxeeyaan ehelada labada gadaasheedii ka muuqata weli ee aan fasaxa ka qaatay tolkaan ka dhashay ee yidhi war doorshaan xaq baad u leedahay inaad bulaacadii uu xaarka saxaro bulaacad baa leh iskula rid markay ay soo doonteen kadib waayo waxaan rabaa haddaba qofkan aad u qabto eylayga haraaday ee sagaaladu taariya maanta raacdaynayana qaban waayey ee garka taagaye iska low sahalka ee aan idin lahaa gaajo hiil haraad ugu tagto goysay maan adayga ka gaabsada waxay kala gurtaan laba gumood waagi markaan isaga ugu celinaya de waa ila wax wasla socdeen waxaan leeyahay guumays ma aarba gabbal dhacay ma subaxba goronyadu mahaadba su'aalahan isgarab yaal waxaan uga gol leeyahay gamcoorkii hunqaacee abwaan uusan gaarayn goodka gacan u taagtow nacs goodka gacan u taagtow ma gooda gacan loo taagto madaar socdaa la isku soo doontaa gamcoorkii hunqaacee abwaan uusan gaarayn goodka gacan la doontow nacas yahow isgabawaray afgarooca liitow suugaan gefkeedow agabayaa qaraabo juudaanka suugaan gefkeedow jiinlayda gabaygiyo giigaada hadalkaba mar haddaad geddaas tahay gabdhaha ku dhaamee go'i waaye how noqon halkaasaan uga gudbayaa isaga waxaan u gudbayaa siyaad duuflow horta wada hadashay adigaa isoo doontay tolweynahana adaa soo doontay murusan islowgana adaa u gafay waxaadan qaadi karnama dhahal u lahayna adigaa soo doontay dadna adoo ugu itaaliyar ugu doqonsan oo ugu diibsan magaca markay noqotana waad ogtahayo adeerkay wixii aad ku ahayd waad ogtahay anigu kuma bixin muxuu ahay waxaa tiri adeerradii soo caayay iyo gabdho jow horta gabdha ma caayin ibta aad ka sheekaysana waa garac iyo hadalkii waana beenta islaam fiicannimihiido rasuulkeenni maxamed baa laga hayaa beenaaluhu ummadayda maahan erayga aan iri ummadduna ay maqashay waxay ahayd gabdhaha murusade sabdi majaba sabdi habar idinle iyo gumcadle ha ka dhex baxeen dhaqanka rag baa loo dirsaday rag baa iskale ee guryahooda ha noo dhaqeen adiguna waxaa tiri wax ay ibtooda ka shaqeeyeen yacni dhalaysi baad u dhiiday waa iska dhaqankii iyo hadalkii wixii lagugu sheegaya adna goorba iga dhiga bandid adiguna kolley iga dhiga badnido siyaadadi cabdisanay anigu ma dhihin haddaadan siyaado ahayn inaan adiga hadda waa wacal iyo ku idhaahdo dhaga qurux badan laakiin adiguna dhegalihi dhaqankeediina waa leedahay wixii lagugu sheegayay dhaqankeedii waa leedahay tolnimaadaad xeerin lahayd jamcaalo cumarkaad sheegaysaad xeerin lahayd gumcadlanimaad xeerin lahayd
muxuu adeerkaa socdaal abtidoon sida adigu u sheegtay adeerkaa ba'ye kaasaad xeerin lahayd dhaxalkaad xeeri lahayd murusadaad xeeri lahayd oo naftaada baad wacla ku tahay sababta oo ah waxba kama dhasho ey la soo dirsaday oo doqon ah oo liita oo damacu meel xun ka galay baad berna waad sheegtay laba ninow haddii qof ay isu raacaan wacalnimo iyo doqonnimo waa inkaar shaydaanka ayaa wuxuu leeyahay noocyo badan asaga naftirkiisa kala shaydaanka naftirkiisa magacayaal nooc jiib jaab la yiraahdaa jirta ama jacfaafuri oo doqon ah oo haddii ilaahay kuu roon yahay duuf laho aan naf lahayn noocii baa tahay jacfaafuriga shaydaanka nooc ka mid ah tahay beenta ixtiraam xumida adeerku duulka walaalihii ixtiraamnimada meesha aad gacanta la aaday baan gacanta aysan horta kaa qaban waxaad ku hadashay inay xigmadna kumaad hadline islawgii ayaad waxaa tiri islow baan qaadaya saldanada islow baan qaadaya saldanada islowgana waxaad u haysataa wax lagu tuugsado inkaar kugu dhacday kumale waaba ku haysaa tan labaad taariikhda islaw aad ka hayso ma quraafaadkaasaa markaasaad ku qaadaysaa adoon awalba naf lahayn oo duufla ah oo doqonkaas ah oo siyaadadii cabdisanaya adeerkay yaa waa labaan lalahay noocaas balaayada adeerkay ku soo martay laakiin adiga hadda marka lay kaa sharaxay anigu dee qurba joogna waa ahay aniga iyo adiguna isku weel iyo isku muxuu shimbirkiisu la dad isla duuli kara ma ahayn kuma aqoon laakiin cabdisanay waa adeerkay waana maqli jiray kelmaddan waxaa laga wadanaa anigu ma fahansanayn siyaadadii cabdisanayna maqli jiray bero waxaa kusoo korortay uusan isagoo dhalay waaye hadda lay fasiray dhaqankeedina waa kaa muuqdaa habka aad u dhaqmay waxaa tiri islawnimada anoo jiifa ayaa inta la yimid ayaa laygu qasbayo waxaa la yidhi inta aad joogto adigu noo ducey balaayo u ducey waxaan ku weydiiyaa asaan yeelay asaan inta xagga fiirshaan yeelay waa noocii shaydaanka waa noocii rasuulkeennu ka dayriyey calayhi salaatu wasalaam inuu dhowr nooc oo adigas fasiraya kow beenlow baa tahay war sow adiga meesha mugdiga ah adiga iyo laba ninoo kale sow adiga caanaha isku shushubaayey oo xataa nar aan haysanin oo laha islaa waan ahay maaha hadda ka hor saaba kugu qasbay qorya xero dheer dhaqan xumida ayaa kugu qasbay yaasa dhaqan xumi kugu qasbi karaa xagga taas ka soo gudub mid kale horta waxaad tiri adeeraday iyo eeladay baan ixtiraamayaa haddaad adigoo aniga i eedaynaya haddaad eela ixtiraamayso haddaad walaalnimo ixtiraamayso gacanta meeshaad la aaday maxay tahay naagta walaalka haddaad gacanta la aado tan aabbaha tan adeerka meelahaas lama aado saldanaduna waa dhaxal in adays fasiraya horta inaadan horta nasab ahayn oo wixii lagugu sheegayay ee ziyaadka ahaa inaad tahay horta halkaas ku cadda adays fasiraya keligaa oo walaaya ma garanaysaa siyaa duuflow doqonnimana waa kuu dheertay wixii lagugu sheegay kollay adiguna maqashay oo iga dhega badnid intaas waxaa dheeriya inaad dhuumatay ahayd ee haddana anigeed soo aadaba niow waadanay aqoonine suusa gaari layskama tuuro 29 daqiiqo inaad laba jeer baad iska tuurtay waa markaad islow dooratay ee aad eheladaa iyo adeerkaa iyo awlaadiisii iyo reer socol aad ixtiraam weysa waa laba ee markaad aniga isoo doonatay baad horta ismalagtay oo ilaahay ogyahay islawnimadii gafka aad u geysatay hadda tan inaad walba la aamusta yahay islawnimadan aad u qabto in lagu tuugsado iyo qoraafaadka aad ka sheegay islawga keliya mahay macal ugaaskii islawga ka sarreeyay waa 2 darajo oo isku xigta horta xayawaan baa tahay 17 nin oo islaw oo muxuu ahaa oo dhaqan ah iyo ugaaska iyo islawga ayaa mursada maamuli jiray waana sababta aysan weligood mursada isku dilin
dhexdaad nooga soo yaro dhacdee maahid dhaladkii dhaantiya waxay kugu dhaleen saarya gadacdo may maqleen qandhaa ku dishay wax dhintay baa tahay islowgiyo ugaaskuna haddaad u qabtay islownimadu walow aadba inkirtay oo aad tiri caddaan dhiblawo ka bilowday caddaan dhiblawo waana ugu dambaysa socdaal iyo abtidoon iyo kayre iyo geedi iyo jimcaale iyo cumar iyo axmedna waxay ahaayeen nabadoono waxaa lagugu yiri horta saldanadda inkir inay dhacal ahayd iyo si iskugu daba joogtay oo iskugu xigtay si aad cidlo aad ugu noqoto aad yani aad ugu madax bannaanaato oo caddaan dhiblaawo way ka bilaabatay waana ku dhammaatay hadda cid kastay u furan tahay si aad u tiraahdo caqligaa sanadka inta laakiin waa caqliga ugu hooseeya waa caqliga duufka kuu yeelay waa caqli wacal waa bulaacad waa doorshaan xardilindhilaysa waa dad doqonnimadaada iyo siyaadadiyo israacay yahuu intaa dabadeed inaan ku caayahu qabin waxani waa waxa adigu fasirkaaga bas fasirkii keliyahan saarayaa waa wax dhiga kaa yimi ugaaskii aad caydayoo ugaaskii waxaad ka dhigtay mid aan dhaqan lahayn ka horta islawga waxaad ka dhigtay wax aan dhaxal lahayn waxaan soo jireen ahayn caddaan dhiblawo ka bilowday kuna dhammaaday aqoontaana intaas kaa ah danna waad moodayoo danaad ka raadisay tabarta baaday ey la dirsanayana waatoo eygaa ku dhaama waa dhaqanka dhilada dhaqanka aad ku dhaqmayo oo yacni seexo soo toos ku dhufo ninaan lacag haysan meelihii uu geli jiray muxuu ahaa ee lacagta la siisan jiray waalkii baad leedahay horta inaad naag noqoto maraaka cabdow iyo boqoda gashaa kuu dhaantay meesha aad gacanta la aaday laakiin waadan garanay oo haddaad gobtaa horta walaalow waxaad cayday ugaaskii mursadee oo waxaa tiri waxaan dhaqan lahayn buu ahaayo guri ninkii lahaa ka maqan yahow inta soo galay iska soo galay ayuu ka tuugsaday baa tiri hadalkaaga ummaddan waa dhegaysan doontaa anaa soo sheergaraynaya weliba asaajeedalka iyo waxaa ku dhacay iyo maxay horta wixii kale cimaamadiimamiya maqamis iyo koofida aa ku kor dhacay caddaan dhiblaawo asagoo yiri wax cirka kacab wax dayaxa kacab allaha ku siiyo saasuu ku caddaadayo caddaan oo kuwa caddaaday asaa walax sida bisha oo cadaa oo caddaan magacu meesha isku yimid oo caddaan war caddaan mihina madow baan furug ku dhawanaani jaahil intaa marka بسم الله الرحمن وروح مكانك حيوان كاس اريع اسلام اريع انت راي سوق قصبيان انت حق في الشيء حق اريع سوق سوق دوفل داي كو شيغو وجيغا غوي غوي دوفلو وغاسكين دقن بولها شرف بولها انا توكسن جيرين غريها اسلامنا اسكما غلي جيرين سقجان ما ahayn laakiin saqajaan soo hadal qaaday baa tayo ugaaska raaligelin kaama rabiyo anaa raaligelinaye wajigaa gubaye waxaad yeeshana afkaagaas naga qabo intaanan eeba kula lahay intaasna horta kaa leh waxaad cayday inkirtay saldanadii aad adigu sheeganaysa ee awowgaa soo ahaa sida aad ku abtirsatay adigu dee laba guryaad ku dhalatay sidii lalahaaye laakiin de waa ku abtirsataa anna waa ogolahayo waa ku aqbalsana may maqleen mar haddad adeerkay cabdisanay iyo doola jimcaale ku abtirsato ifka ugu jecelahay iyo maaragtay diliga ziyaada dhilla waa iska ogol iyo weerdawac iyo maaragtay adilay ku wax maxay wax la dhihi jiray xayahay wax cawratirimaad waa iska ogolna inkastoo mid kale kula socdayna yaa jubba aka sii soco maaye xaggaas sii soco maaye isagaan asaguna sii daahi doonin waayo niga warta saldanada aad sheeganayso waxaad cayday inkirtay saldanada aad sheeganayso sidaad u sheegaysaana wax jira maaha aqoonna uma lihid meel ay kasoo bilaabatana ma taqaanid meel ay ku dhamaatana ma taqaanid siyaadadaasaad ka tahay ee siyaad duuflow هذا كقال وروح وروح محوية هذي كورية دقاقة
sibaab caadi oo la isu soo diray ma suuxsan tahay mise caadi ah islowgu waa ka soo bilowday cadaan loogu bilow war ma ahayna habar idin loo ka bilowday xoog alla ku qoy waxaa tiri geedi gabartiisuu qabay geedi iyo gumcalla waxay soo hayeen mataqaan horta hadwan geedi iyo gumcalla waxay iyo odayga gumcalla waxay soo hayeen mataqaan horta say isu guursadaan qaabka isu soo gaaraan mataqaan horta xasan iyo xuseen ama ayaan samay iyo haddii lay kuurada gumcalla ma isu taqaan waxay isu yihiin labadooda wala iska soo dhaqaaqa asaa aryaa had wala inta guursaday wala bulcada inta koofida ku soo dhacday jadalka koofida ku dhex jiriyay muxuu ahaa sheeg ugaaska asoo inta foorarsaday ma jadala wuxuu galay koofasay fatatag war waxa dadka u sheegay sibaab iyo xayawaan iyo sawir iyo sabsabla iyo duufla iyo siyaadka wajiga gudbay walaalow saas ma waa beenta oo igu wallaahi wax la mid ah baan kuu sheegay halkan aad soo aaday baan kuu sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa qoomkii uu sheegay aata horta waa maroo beenloo baato ummadiisa ka mid yihiin koofida aad qaadatay iyo shaal iyo dharka ay kaa soo bedeleen iyo mid cusub hadday kuu geliyaan iyo boqoraduna ninnimo maaha waxaa ku dhex jira ayaa nin la yidhaahdaa koofi iyo ul iyo shaal iyo cimaamad iyo nin ma noqdaan wax dharka aad soo gashay oo xirahay koofida ninnimaha mooda iyo usha aad soo qaadanaysa daayeerka soo qaadan kara daayeerka sidaada iyo wax siyaado kasta iyo duuf la iyo wax baa soo qaadan kara agaranaysa wariyahay ka soo gud waxaan ka xumahay wiilasha aan adeerku ay adigu aad dhashay adeeran saas ugu ahay wallahi oo damqayan ka xumay bil adeer raalli aada waxaan naga darbaaxa waqtigaana naga waxba idin tari maayo adeerkay baa doqol murusada iyo dirac abgaala iyo doodiyaha xawaalada iyo deeqsi habar gidira midnaba ilaahay kaama dhigo waa nooci aan geedka iskaga xiri jirnay caruur kubad ciyaaraysa kubad oo kolley iska bugleeda ciyaaraya ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo niman asxaabiyiin oo la fadhiya ayaa kubaddii waa taqaanaa bulano iska soo tuurmaa lugaa la dhaca nabiga farqiisa ay ku dhacday calayhi salaatu wasalaam caruurtii kubaddii inay soo qaatarta waa soo ordeen caruur waa taqaanaa iyagoo isgarab ordaya nabigay ku yimaadeen markay ku yimaadeen ka hakadeen ayaa mid soo dhaafa asoo dafka koriy horta noociyaa tahay dafta ahayd rasuulku saas u fiirshay soo wiri cunugan ugu yaraan waa ibnu xaaram waa ibnu xaaram nin asxaabiyaa dhalay cunuga waa la weydiiyaa rasuulullaahi waa wiilkan waxaa dhalay hebel waa yaabiyey hebelkii uu weydiiyey wuxuu yiri war ninkan balka war nigoo loo waxyoo jiray wuxuu yiri yaa rasuulallah dagaalkii hebel ahaa habeenkan ka nimid anoo gaajoon oo guriga u sii socdaa ayaan xabad timira beertii hebel kasii goostay waa cunay usheegaan islaa umana sheegay usheeg ayaan islaa umana sheegay habeenkaas waana calool galay ka warar hadduu marka siyaad yahayba adigoo siyaad ah wad isfasiraysaa wacal hadduu cunugu noqdo ma adeerkiibuu ixtiraamayaa ma walaalihiibuu ixtiraamayaa ma islaw buu ixtiraamayaa kii ibnu xaaramka heesoo noqdee ibnu zina maxaa laga filayaa dariiqeeda adaa cadaystay waa fasiraadda hadalkaaga iyo waxba kuuma geysa waxaad tiri waa lay qasbay walaalow gacali ninkii miyaadan ahayn mugdiga anaa iskula shugay maxaad beenta u sheegaysa ayaa ku qasbay iyaasa ku qasbay kara kasoo gudub ayada waxaad tiri odaygu gumcalle wuxuu qabay hadwan geedi ayadana waxaan ku weydiinayaa hadwan ama odayga geedi iyo horta gumcalle ayaan samay maxay isu yihiin fur arwaxoode nin waxaasa adduunka iskaga nool waaye waxaad tiri hinaas baa hayay raallingelin ayaana ka bixinayaa daas waa su-aal maxaan ka hinaasaa ma naag baa tahay oo maadan ku jecloo nin kale ku guursaday naclada ku fuushay maxaan ka hinaasaa yaan ka hinaasaya ma wax adigu aad leedahay ama aad yeelan kartaa isla waan kaga hinaasaya xaggeed ka soo gashaa
سيد أبو حد إيش أبو كرس عضلو أنا أبريدي كرنا إبو والله بقول ترى اللي يري حلو على مساره ودن كتك كينيا تك إنجليزكا يقول الله يقول بالله يقول تراه ربي يا رسول الله يقولتي أو يقول الله مركزان المية أبو كرس عضلو أو أنا فصح كقاضي اسمه شرح كرو احترام كرنو عسى وايو حلال بنقولش مهر بنقولش دقن بان ليه ساسا واحد وابا أديك مر وابا هي أديك جمعة عمران هاتري نعم adeerkay waa ku abtirsataa laakiin dhaqan ilma adeer ma lihi aniguna kuu xeerin maayo waad ka dhowrsan lahayd naagta walaalkaa laakiin meesha aad gacmaysay iyo meesha aad la aaday baadan de tol iyo walaalku hayn ixtiraamna ku lahayd kaga daran awood aad ey kasta oo laga dhiga waxaa la yidhi ugaarsade awr xun iyo ey ma waayo haddaad eyga naqatay war kuwaasna waa iska dhexeenana adigana waa iska kaa dhicinaya ooy ama cabaad wallaahi bilaahi yatallahi weliba intaan ku arkaan maysa waa wadi doonaa haddaa la yidhahda ilaa aan ku duubo taariikh weeye waxaan waa duuban yihin way war murusadow isu keena dhegaysta madaxweyne oo garqaada idinku rag aniguna nijaas inaan laga dhaqo waa waxaan dharka u gashaday waa waxa aan u soo fadhiistay waa waxa aan kaliibka u duubay waa mahadsantii waxaa tiri xaal baan daaris qaal ka bixinaya xaal aniga ha iga bixinin raaligelin ha iga bixinin naftaada ka bixi iyo nacasnimadaada iyo gafka isbaba aad u geysatay ee aad tolkaa u geysatay ee aad dhaqanka u geysatay ee aad ninnimada u geysatay raganimada u geysatay yaa duuf foqol duuf doorshaan foqol qoraweytaal barambaro foqol waxbayo yaa waxaa tiri isaga oo 70 jir ah ayuu gabdhihii u adeerka u ahaa cay horta waa beenta muwaafaq beenaale kadaab iyo kuwii nebigu tilmaamaa tahay mar kale oo been baad sheegtay anigu gabdha ma ahay waxaa tiri ibtooda waxay ka keeneen ayay ninka siiyeenoo saasuu kusoo baxaya ayaa fiiri waxaan ku sheegaa ib gabdheedna kama hadlin adigaa ib iyo dababa ka hadlay iyo muxuu ahaa waana dhaqanka garac lagu yaqaano anigu waxaan iri waa aqaanaa waana duuban yihiin waana hee duuban yihiin waxaan iri gabdhaha mursade kuwa sabdi kuwa majaba sabdi kuwa gumcadle dhaqanka faraha ha ka qaadeenoo guryahooda ha naga dhaqdeenoo raggooda iyo carruurtooda ha iskugu keenna dhaqanoo ha noo hayeen dhaqanka rag baa u xil saaran islaw iyana waxba kama gelin iyo ogaas waana wax saxa xaq baanu u leeyahay hadday qalad u fahmeenna anaa xataa ka raaligeliyo eri haddaad qalad u fahamtay raalli ahda haddana waxaan leeyahay gabdhahayga wax kasta oo damqa waa adeerkiin daar socdaal waa saaxiibkii raalli ahda anaa dhihi kara adigu waxaad raaligelisaa naftaada duufkaaga siyaadadaada isla waa aad u gaftay iyo tolkaada kadaab baad ma tahay beenala ah waxba yaa la iga bixinin oo maaragtay ii sheeg waxba isuma ihin oo doqon baa tahay doqonna waxba isuma nihin oo doqon iyada isku tola way waxaad tiri waa 70 jir nacam markhaati baan kaaga ah 70 jir baan ahay 32 kala ii dheer 102 jira waana ku qanacsanahay garashadeedaan leeyahay caqligeedaan leeyahay ilaahay baan ka baryay waa wax muxuu ahaa ilaahayna waa ii aqbalay cimri dheerna ilaahay baa la weydiistaa waana ka helay garashadeedna waa leeyahay adigu gu ma jirtid gu haddaad 20 jirto iyo haddaad 70 jirto iyo haddaad 80 jirto inaa adeerow adigu gu ma jirtid oo garashadeeda kaa maqan haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaa in wax ma dhaantid geed
geed sidiisii aad u dhaqantay oo weliba nacasnimo aad ku darsatay iyo fatatag miro qarmoon oo ka daadanay oo ku faraxsanayntaada murursade kelibkan intaan kusoo gabagabeynaya waxaan leeyahay murursadow haddii doqonkaasi iga gar helo xaaji xasan gareera laga sheegay haddii doqonkaasi iga gar helo awrkayga u qara haddii aan ka gar helana ilma adeereero isaga ii qara hadda waxaan leeyahay murursadow haddii uu iga gar helo kanuu ninkii uu sheegaya xaaji xasan gardheer ma dhanne e lax lax baan soo gadayaahe u qaad u qasha lax ama ri taa doontaan haddii uu iga gar helana hadduu aniga iga gar helo laxdaas u qara haddaan ka gar helana asaga iyo qooroweytaalayaasha la socda ilma adeereer iyo qara iyo midka khaash iyo haladu qabto baasha maxay ahayd ii sheeg qooroweytaala habaabaho qooroweytaalayaasha kala kala kelibkan halkaas waan kusoo koobayaa usii diyaargarow midka saddexaad haddii ilaahay yidhaahdo waana idin salaamayaa ilma adeereer salaamu allaahi calaykum jamiican